السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودyaal kusoo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub suuqa kala iibsiga. barnaamijkan waad kala socotaan markasta ay channelka cusub la TV fadlan hadaa ku cusub tahay channelka saar subscribe sidoo kalena like saar videoga si uu sii gaaro asxaab aad u fara badan. aynu ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa dhameystiraysa heshiiska ay kula soo wareegayso ciyaaryahanka u dhashay wadanka Ukraine ee u ciyaara kooxda Manchester City ee lagu magacaabo Alexander Zinchenko. Zinchenko ayaa ku soo biiri doona kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Arsenal ayaa isbuucii hore la gaartay heshiis rasmi ah kooxda kubadda cagta ee Man City si uu la soo wareegto ciyaaryahankaasi. Arsenal ayaa bixisay lacag qiimaheedu gaarayo 30 milyan oo ay siisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City si uu la soo wareegto ciyaaryahankan. ciyaaryahankan ayaa soo macsalamay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City isagoo ku wajahan kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayadoo Arsenal ay ku marayso fasaxa xilliga xagaaga ah ee dalka Mareykanka. sidoo kale Man City ayaa ku sugan dalka Mareykanka balse ciyaaryahanka ayaa soo aadaya qaybta Arsenal ay kaga sugan tahay wadanka Mareykanka ee la yiraahdo Orlando. ciyaaryahankan ayaa Arsenal u saxiixi doona heshiis 4 sano ah. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa dalab ka gudbinaysa ciyaaryahanka lagu magacaabo Cucurella ee garabka bidix ee daafaca kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Brighton. ciyaaryahankan ayaa heshiis shakhsi ah la gaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester City balse Man City wali dalab kama aysan gudbin. waxaa la filayaa in saacadaha soo socda kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay dalab u gudbiso kooxda Brighton si uu la soo wareegto ciyaaryahankan garabka daafaca bidix kaga ciyaara kooxda Brighton ee la yiraahdo Cucurella. Man City ayaa danaynaysa in ciyaaryahankaasi la soo wareegto maadaama ciyaaryahankoodii Zinchenko uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee ka ciyaari jiray isla booska number 3 ee daafaca. Erik ten Hag oo tababaraha kooxda kubadda cagta ee Man United ayaa ciyaartoyda u sheegay inuu doonayo inuu la soo wareego ciyaaryahan qad dhexe ah oo aad u tayadiisa u sareyso balse ay dhib badan tahay in xilligan la helo ciyaaryahan qad dhexe tayadiisa aad u sareyso. naadiyada kala duwan ee kubadda cagta ayaa isku diyaarinaya horyaalka soo socda ayagoo ciyaaraya kulamo saaxiibtinimo. kooxda Chelsea, Arsenal iyo Man City ayaa fasax ku jooga dalka Mareykanka ayagoo halkaasi kula ciyaari doona kulamo saaxiibtinimo kooxa ka dhisan wadanka Mareykanka. Chelsea ayaa la ciyaari doonta kooxda la yiraahdo Charlotte FC. ciyaarta ayaa soo gali doonta caawa 2:00 habeenimo. sidoo kale kooxda Bayern Munich ayaa la ciyaari doonta kooxda DC United ayadana sidoo kale isku waqti bay soo gali doonaan 2:00 habeenimo xilliga Geeska Afrika. Orlando ayaa Arsenal la ciyaari doonto ayadoo saacada ay tahay 2:00 habeenimo. Everton iyo Minnesota ayaa wada ciyaari doona 3:00 habeenimo oo xilli dambe ah. sidoo kale Man City iyo America naadi la yiraahdo ayaa wada ciyaari doona 3:00 habeenimo. saacadaha ay ciyaari doonaan naadiyada qaaradda Yurub ayaa ka duwanaa doona saacadihii hore ay ciyaari jireen iyo xilliyadii ay soo gali jireen marka loo eego dhanka iyo Geeska Afrika. saacadaha ay soo gali doonaan ciyaaraha saaxiibtinimo ayaa saacada xilli dambe oo ah xilliga salaada subax ay ku dhowdahay. barnaamijkii maxaa ka cusub suuqa kala iibsiga iyo guud ahaan ciyaaraha waa naga intaa. waa ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. fadlan haddaa ku cusub tahay channelka saar subscribe sidoo kalena like saar videoga si uu gaaro asxaab aad u fara badan. waa mahadsantihiin.